tan maanta adduunyada dadku masiibo u yaqaanana masiibo maaha. adduunyada masaa'ib way jirtaa, laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada. bal wax ka weyn sheeg. masiibo way jirtaa adduunyada, masaa'ibtu way badan tahay. abaartu waa masiibo, bugtaantu waa masiibo, ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo, islaantu oo kaa xanuunsata waa masiibo, ganacsiga iyo tijaaradii oo kaa baabada waa masiibo. hataa ardayga jaamacadaha dhiganaya hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa. laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan, waa adduunka markay noqoto. laakiin aakhire markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqoni doontaa dhimashada. ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan, qur-aanka ilaahay noogu sheegay wanaadow yaa maaliku liyaqda calayna rabbuk qaala inakum maakithuun. 40 sannadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin yaa maalik, waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba. maxay dhimasho u tamaninayaan? bal ii sheeg. dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada. marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan, ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan. aakhire markii la tegana masaa'ibta aakhire masiibada ugu yar waxay noqoni doontaa waa dhimashada weeyaan. saa darteed adduunyadu way nagu weynaan agteenna, waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamka muslim. aakhiradu waa inay nagu weynaato. waa la dhimanayaa, dhimashada waxaa ka dambeeya ha kula weynaadaan. qabri baa ku sugaya, qiyaamaa ku sugaya, janno iyo naar baa dambaysa, ilaahay baa lagu hor joojin doonaa. noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey, 60kii sane adduunyada lagugu deeqay, 50kii sane adduunyada lagu siiyey, waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa. daqiiqad baa lagu weydiin doonaa. cataa asuleymi raximahullah ayaa nin taabiciya buu ahaayo aad u murug badan, salafu saalix. waxaa lagu yidhi yaa sheekh, murugtaadani aad bay waad murug badan tahee dadka maxaad dheer tahay baa lagu yidhi. waa ninka la yidhi 30 sano isagoo qoslayna lama arag, 30 sanona samada ma eegin baa la yidhi. dhulka umusadaa u eega u soconaya. ninka meel u caddahay meel ka madow, dadkaasi aakhirada ku weynayd iyaka. markaasuu ku yidhi almowtu fii cunuqii waalqiyaamatu mawqifii, almowtu fii cunuqii waalqabru beytii waalqiyaamatu mawqifii wacala asiraati طariiqii walaa adri warabbii laa adri maa yasnacu bi. warabbii laa adri maa yasnacu bi. wuxuu yidhi maxaanan u murugoonayn, maxaan la murugoonayn buu yidhi. geeridii baa qoorta ii suran, qabriguna waa aqalkaygii, qiyaamahana waa lay joojin doonaa. 40,000 oo sano buu yidhi ibnu cabbaas. wa fii yowmi kaana miqdaaruhu 50,000 sana. 40,000 oo sano buu yidhi ibnu cabbaas ayaa la joogi doonaa banka qiyaame. 10,000 oo sanana xisaabtaa ku dhammaani doonta.